assalaamu calaykum waa tahay daawadayaal soo dhowaada asxaabay dunida tiknoolajiyadda halkee ayay maraysaa wax badan muuqaalkan ayaan ku lafaguri doonaa ee soo dhowaada saaxiibayaal waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa labada shirkadood ee loo yaqaano OpenAI iyo Google Bard AI labadan shirkadood ayaa horumarin aad u weyn ku wada caqliga macmalka barnaamijka artificial intelligence labadan barnaamij ee aadka loo sugayo ayaa kala Q-Star iyo Gemini haddii aynu ku horeyno waa maxay barnaamijka cusub ee Q-Star 17 bishii dhamaatay ee November waxay guddida boardka shirkadda OpenAI oo ah shirkadda leh barnaamijka ChatGPT ay shaqada ka caydhisay Sam Altman oo ah maamulihii guud ahna ninka maskaxda u badan geliyay barnaamijka ChatGPT walow guddigu sababeeyeen caydhintiisa markii dambana xilka lagu soo celiyay haddana waxaa soo baxday in sababta loo eriyay ay ahayd barnaamij uu si qarsoon ugu shaqaynayay lana dhaho Q-Star kaasoo board ku arkeen inuu halis ku yahay aadanaha haddii aan cilmi ahaan furfurno sababta barnaamijkan halista ka dhigtay waa inaynu marka hore fahanno artificial general intelligence caadi ahaan chatbotska ka jira sida ChatGPT, Bard AI iyo kuwo kaleba awooddoodu waxay ku eeg tahay ama loo tababaray inay diiradda saaraan shaqo hawl cayiman iyagoo xogta ka soo qaadanaya mareegaha internetka macnaha xogta ay dadku geliyeen internetka ka waran haddii awoodda AI-gu gaari lahayd heer ay si madax bannaan u fikirto oo halka su'aasha aad weydiisay internetkaaga baadhi lahayd ayadu mid maskaxdeeda ay ka keentay kuu soo gudbiso waa taas awoodda iyo farqiga u dhexeeya chatbotskii hore iyo nidaamkan ay shirkadda OpenAI ka shaqaynayso ee Q-Star dadka cilmiga tiknoolajiyadda taxliiliya waxay gaadhsiiyeen heer haddii horumarka AI-gu sii socdo ayna soo baxaan barnaamijkan Q-Star iyo kuwo kaleba ay caqliyada macmalku gaadhi doonto heer ay fikir iyo cilmi ahaanba dadka gumaysato oo xogta ay sida joogtada internetka u gelinaysaa ka badato tan dadku qorayaan halista u weynina waa inay iskeed isku cilad bixin karto u samaynayso codes iyo instruction cusub halka markii hore dhammaan codeska ay qori jireen developersku daawada barnaamijka Q-Star wax badan ayaa u fashilaya haddii uu soo baxo sida sirihii la kala qarsan jiray sida loo sameeyo hubka sida loo sameeyo gantaalada sida loo sameeyo waxyaabo fara badan oo la kala qarsan jiray hadda barnaamijkan Q-Star haddii uu soo baxo wax badan ayaa fashilmi doona barnaamijkeena labaad waa barnaamijka loo yaqaan Gemini amaba Gemini bishan dhexdeeda waxaa shirkadda Google sii deyn doonta barnaamijkeeda cusub ee Gemini oo loo isticmaalay tiknoolajiyadda casriga ah ee large language models soo bixidda Gemini waxay tiknoolajiyadda uga dhigan tahay inay gaadhay heerkii ugu sarreysay barnaamijkan waxa loo isticmaali doonaa qaybo badan oo nolosha aadanaha fudaydin doona wuxuuna aqbalayaa muuqaalada codka qoraalka iyo sawirradaba waana sida mid ka dhigaysa in uu suuqa si buuxda ugala wareegi doono barnaamijka shirkadda OpenAI ee ChatGPT haddiiba aynu dib ugu sii daadegno barnaamijkeennan muxuu inaga caawin karaa barnaamijkan Gemini haddii uu soo baxo waxuu inaga caawin karaa dadka content creatorska ah wuxuu ka caawin doonaa in qoraal yar text promote ay ku soo saartaan mockups illustration product design videos xitaa wuxuu daqiiqada kuu sameynayaa muuqaalada nooca loo yaqaano animationka oo waagi hore in hal daqiiqo oo muuqaaladaas ka mid ah la sameeyay ay qaadan jirtay muddo bilooyin ah maalin walba saacado laga shaqaynayo wuxuu sidoo kale barnaamijkan naga caawin doonaa cilmi baadhisyada sayniska cimilada caafimaadka iyo ganacsigaba waxa kale oo dadka developerska ka caawin doonaa inay website ama system dhan koodkiisa ku diyaarsadaan daqiiqado iyagoo qoraal ahaan ku gelinaya nooca ay doonayaan waxay ka dhigan tahay haddii aad u baahato inaad samayso school management system sidoo kale aad samaysto hotel management system sidoo kale aad samaysto systemyo badan oo wax ku maamula ama systemyo badan oo aad adigu iskaa maskaxdaada uga keentay barnaamijkan ayaad u sheegi doontaa isaga ayaa kuu dhisi doona halkaas waxaa shaqooyin badan ku waayi doona developerska ama programmerski samayn jiray programyada iyo softwarada waa dhanka faa'iidada marka laga yimaado
wuxuu Gemini sii kordhin doonaa in badan shakhsiyaadka ay artificial intelligence shaqadooda bedeli doonaan sida programmerska, designerska, video editorska, graphics, content creatorska. dadkaasoo dhan artificial intelligence ayaa shaqadooda ka qaadi doona mustaqbalka dhow. xogta tiknoolajiyada ugu dambeysay dunida halkaas ay maraysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.